howlgal ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen inta u dhaxaysa degmada Balcad iyo degmada Jowhar ayaa waxay ahayd markaas mid lagu xaqiijinayo amniga wadadaasi. markaasna magaalada Jowhar waxay nooga soo diray Ibrahim Cali Nuur. howlgalkan ay fuliyeen ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa xoogga dalka ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayo guud ahaan amniga wadada xiriirisa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo muddooyinkan dambe al-shabaab ay ka geysanayeen weeraro dhabagal ah. ciidamada ayaa waxay lug ku soo mareen goobaha cabsida badan ee ka taagneed oo al-shabaab weerarka ay ka geysanayeen, waxaana meelaha ciidamada howlgalka ay ka sameeyeen ka muuqda dhibaatada ay reebeen weerarada iyo qaraxyada halkaasi ka dhacay. taliyaha ciidamada xoogga dalka ee qaybta 27aad Jenaraal Maxamed Aadan Koronto oo warbaahinta kula hadlay deegaanka Haanshiiq oo ah meesha weerarada badan ay ka dhici jireen ayaa sheegay in ujeedka howlgalkooda uu yahay in dib ay u soo celiyaan amniga wadada xiriirisa Jowhar iyo Balcad. meeshaan waxaan joognaa muddo ayaan ka shaqeynay hawshan oo wadada nadiifinteeda ah taasoo oo inuu qasbeen nimanka nabadiidka ayagoo shacbiga Soomaaliyeed meeshaan ku dhibay oo arkiisan meelada meesha dhulka loo geliyay shacbiga inay shacbiga ku laayaan dhulka meelo u laayaan saadaradeed waxaan go'aansanay inaan jidkaan roonda ka qabanno banaynana xoog iyo juhdi badan gelinay inaan geedaha xaqno oo banayno haddana waxay u soo direen shacbigii inay ku sii laayaan meesha oo baabuur halkaas hadda godka aragteen lagu gubo shacbiga ay lagu laayay laakiin wadada waxaan idin sheegay in nadiif tahay. dhinaca kale Jenaraal Maxamed Aadan Koronto ayaa sheegay in toddobaadyada soo socda in goobahan fariisamo ay ka samaysan doonaan oo ay soo dejin doonaan ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM. ciidamadaas waa already waxa degan yihiin jahada waa degan hanaga waa maraan wadada waa todoba baabuur oo qorsheenay oo sii marta soo marta saddex xag u socota oo isdaamaraysa si jidka loo ogaado wixii dhib ka jira. laakiin hadda waxaan ku sheegaynaa oo hadda wax ciidan degan dhammaan laakiin insha Allah weegaan ciidan waa degaya meesha ciidan AMISOM anaga waa degay. ururka al-shabaab ayaa dhowr jeer waxay weeraro sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo badan ciidamada dawladda Soomaaliya waxay ka geysteen wadadan howlgalka ciidamada ay ka sameeyeen ee u dhaxaysa Jowhar iyo Balcad. Ibrahim Cali Nuur, telefishinka caalamiga Universal, caasimada dawlad goboleedka Hirshabelle, Jowhar.